waxaan idin hayaa maanta application lacag laga sameeyo adoo Itoobiya jooga. Application kaas waxaa ku xidhan dad 10 milyan kor u dhaafaya oo Itoobiyaan ah, laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee Itoobiya joogta in aad war uga haynin kuma badna, aad bay yaryihiin. Haddii xitaa ku jiraan dad dad aad u yar. Application kan ayaana idin tusaya habka uu shaqeeyo. Application-ku waa kan. Application-kan lacag fiican baa laga shaqeystaa oo real ah. Waxaan ku shaqeeyaa lacagta Itoobiyaanka ama birta loo yaqaano. Application-kan haddaan tuso habka uu shaqeeyo, waa hab aad u fudud oo basic ah. Waxaan hadda qoraalkan dheer aad arkaysaan waa ogeysiis. System-kan maxay ahayd la sii casriyeynayay ayay sheegayaan. Ogeysiiska waxaa ku qoran in dadka ay 9 milyan kor u dhaafeen. In habka uu shaqeeyo dollar lagu soo dari doono, ciddii rabtay dollar ku shaqeysan doonto, iyo hab kaleeto lacag kaleeto oo hab kala duwan oo kaleeto ku shaqeysan. Laakiin calaa ayi kulli xaal marka dambe waa la sii casriyeynaya. Habka uu shaqeeyo idin tusi lacagaha waxay dambeeyaan iyo ogeysiisyadu. Application-ku sidan u yaalaa wuxuu ku shaqeeyo waa calaamadaha social media. Calaamadahan baa click la dhahayaa. Aan tuso habka uu shaqeeyo. Application-ku sidan weeyaan wuxuu ka kooban yahay. Waxaan uu ka kooban yahay 0 VIP. VIP-yada waxa la yiraahdaa la iska doongliyaa ilaa VIP 6 ayuu VIP 5 ay kooban yahay. Waa 6 VIP markii 0 VIP lagu daro. Qiimayaal kala duwan baa lagu maalgashadaa marka. VIP-ga koowaad waa 1,000 riyaal, waana 4 task wax la yiraahdo ayaad sameynaysaa. VIP-ga labaad waa 3,000, 6 task buu ka kooban yahay. VIP-ga saddexaad 12 task 6 mooyaan. 12 task buu ka kooban yahay. 10 weeyaan ka afraad 17 task buu ka kooban yahay. Kan ugu dambeeya oo 38 task ahna waa 30,000 ayaa lagu maalgashadaa ama lagu iibsadaa. Haddaba hadda marka hore lacag la'aan baad isku diiwaangelinaysaa. 100 iyo wax bir intaad ka helayso ama riyaal ka helayso lagu oggol yahay. Halkii task kan waa 5 riyaal. Kan ku xiga VIP-ga 1-ka ahaa 4 task weeye. 4 task calaa task 6 riyaal ayuu noqonayaa. Aan furo kan ku dhufto halkan ku dhufanayaan furaya. Kaas hadda ii furan kan. Iyo habka uu shaqeeyo tuso. Waan tijaabiyay waan xaqiijiyay. Wax dhaba. Task-yadu waa waxan halkan baad click dhihi, taana click baad inta fartan waa lagu celinayaa. Aan ku dhufto saas ayuu u wareegayaa. Task-kii koowaad successful macnaha waa heshay lacagtii ku receive oo account-kaaga lagu soo riday. Waan idin tusayaa wax yar suga 4 task baan hadda ku dhufanayaa. 4 task markaan ku dhufano markaas habka uu shaqeynayo lacagta aan ka sameeyay midkan kaliya taa. dhowr account dadka furata lacag ku shubato mid walba VIP-dan iibsato
lacag fiican baad ka dhalin kartaa. Qofka u shaqeeyana waa hab lacag fiican lagaga dhalin karo. Hawl fiican lacagta ka badanta ayuu ka shaqo fiican yahay. Haddaba afartii taski waan taabtay. Aan dib u noqdo baan idhaahdo lacagta aan tusaa maxay akoonka ka balance ku dhacay ii noqotay. Raalli ahaada khadka yar culus. khadka culus oo biis u furmi leeyahay aadna u liitaa. Wii furmi leeyahay raalli ahaada yar. dib ugu noqdo marka akoonka anagii maxaa ku dhacay oo lacag gurigaya weli horta my balance is 152 bir. hadda lacagta intaan ka shaqeeyey intaan kala baxay iyo intaan shaqeeyey inaan tusaya iyadana intaan ku dhufto halkan billing recordgaas haddaan ku dhufto waxaa weeye waxaad arkaysaan 370 300 150 intaa lacagta aan kala baxay waxaana geliyey kunkaa bir. waana lacagta aan la baxay tan hadda guud ahaan lacagta taxan waaye intaan shaqeynayey maalin kasta taski walba iyo intii 6 bir iyadoo halkan soo dhigayaa. waxaa weeye marka hadba way bedelaan waxay ku kordhiyaan way bedelaan. awal hore 100 riyaal markaad ka shaqaysta waad kala wareegi jirtay akoonkaaga bangiga toos u dirsanaysaa. 2 bangi ayuu ku shaqeeyaa commercial banki iyo Abyssinia banki la yidhaahdo 2 bangi ayuu ku shaqeeyaa. lacagtaada toos u dirsanaysaa hadda laakiin 300 ayaa ugu yar lacagta ugu yaraad kala bixi karto. 300 noqoteed kala wareegaysaa akoonkaa ku wareegsan kadib toos baa kala baxaysaa. barnaamijkan marka habka u shaqeeyo iyo sida la iskugu diiwaangeliyo dhammaantood waxaan kasoo samayn doonaa insha allahu tacaala tii dhammaystiran video kaleeto ka faa'iidaystaan leh dhalinyarta Soomaalida Itoobiya joogta dad fara badan Itoobiyada dhan ayaa iska diiwaangelisay. aad baa looga shaqaystaa waa xaqiiqo weeyaan lacagta qaatay oo maxay ahaydey isticmaalay oo dhadhamiyey wax maxay ahaydey feega ma aha wax beenbeena ma aha. aad baa u mahadsantihiin. qaybaha dambe iyo habka u shaqeeya sida loogu xidho bangiga iyo sida la iskugu diiwaangeliyo dhammaantood qayb kalen ka samayn. waxaan filayaa inay in badan ka heshay marka waxaan leeyahay sheer garaya si dhalinyarada uga faa'iidaysato. fadlan sheer dhaha
like saara, comment ka soo bixiya. Cidii u baahan iska diiwaangeliso iyadana way la soo xiriiri kartaa. Hab loo iskaga diiwaangeliyaa jirta iyadana oo fudud oo loo soo maro. Marka aad baad mahadsantihiin.